waxaan rabaa marka digniinta ammaanta walaay waxay tahay sawirada lagu nashriyo social media intii hore muqadimayga ahayd halkaan aan socdaa sawirada lagu nashriyo social media Facebook Instagram-ka Snapchat-ka meel walba sheeg waa meelaha ugu weyn oo laga ugaarsado qofka la doonaya in la dhibaateeyo mithaal baan idin siinaya بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد mahad dhammaanteed Allah subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay rabbigaas ayaan waxaynu ka magan gelaynaa sharta shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga ahba waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo mawduuc muhiima ku saabsan marad ama jiro khatiir ah jiradaas oo ah mid waayadan dambe aad ugu faaftay ama ugu faafaysay bulshadeena Soomaaliya dhexdeeda sadogtihiin waxaan abuuray rabbi jalla jalaaluhu rabbi wuxuu abuuray makhluuqaad kale oo aad iyo aad u badan makhluuqaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala abuuray waxay isugu jiraan kuwa aynu arkayno iyo kuwa ina arkaynin sidoo kale wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala abuuray makhluuqaad aynan ogeynba jiritaankoodaba aynan ka warhaynin makhluuqaadka ilaahay abuuray waxaa ka mid ah malaa'igta rabbi wuxuu noo sheegay inuu ka abuuray nuur inay yihiin addoomo ilaahi subxaanahu wa tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala marna caasinaynin fulinaya awaamirtiisa waa junuuda ilaahi subxaanahu wa tacaala dhulkan ayay usoo degaan iyagoo kusoo degaya idanka ilaahi subxaanahu wa tacaala mararka qaarkood waxay la soo degaan raxmad iyo naxariis iyo bishaarooyin mararka qaarkoodna waxay la soo degaan cadaab sida ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku cadaabay malaa'igta gacmahooda qowmankii inaga horreeyay ee rabbi subxaanahu wa tacaala ku gaaloobay sidoo kale ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray jinniga waxaa laga abuuray naar waljanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum jinnigu wuxuu awood u leeyahay inuuna arko balse anagu awood uma lihiin inaynu jinniga aragno waa makhluuqaad naga duwan siday u samaysan yihiin inta shaaricu noo sheegay maahane wax kale aynan ka garanaynin anagana ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu naga abuuray oo naga soo askumay markii ugu horeysay waa aabaheen aadam oo laga abuuray ciid sidaa daraaddeed makhluuqaadkan aan tiriyey ee malaa'igtu ka wada ka tahay ilaahay ka abuuray nuurka insaankana laga abuuray dhowbada jinnigana laga abuuray naarta ilaahi subxaanahu wa tacaala waa kala duway wax calaaqa oo ka dhex mari kara jinniga iyo insiga iyo wax xiriiro yeelan karaana ma jiraan balse in badan oo ka mid a insiga way xadgudbeen waxayna tallaabeen doonidii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay adduunkan in lagu wada joogo haddii annagu aynu degannahay magaalooyinka haddii ilaahi subxaanahu wa tacaala noo abuuray adduunka inaynu camirno nimankaas jinniga la yidhaahdo ee ilaahay abuuray ee addoommada ilaahayga ah ee sida annaga aan mukallafiin u nahay iyaguna mukallafiinta u ah oo rabbi subxaanahu wa tacaala cibaado u abuuray inay caabudaan rabbigood sida annagabana loogu abuuray inaan ilaahay caabudno wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun nimankaas isku deegaan ma nihin nabigeena noo sheegay sala allahu calayhi wasalam meelaha ay degaan nabigeenu wuxuu noo sheegay inaan isku cunto ahayn oo cuntadoonu ay kala duwan tahay wax walba oo ku kala duwanna idan wax xiriir uu noo dhex maro annaga iyo iyagu ma jiri karo maxaa yeele maba aragnaba ruuxaad taqaanid ama arkaysid ama la khitaabi kartid amaad u jeedid ayaa wax ku dhex mari karaa laakiin ruuxaadan u jeedinba see wax ku dhex mari karaa waa jin uma jeedid isku cunto ma tihidin isku meel ma seexataan isku amaakin maba joogi kartiinba in badan oo ka mid ah ama in ka mid ah insigii ayaa gudbay waxay u gudbeen inay xiriir la yeeshaan xiriirkaas oo ah xiriir khaldan jinniga weliba ay la yeeshaan jinniga midka gaalka ah midka caniidka ah midka rabbi subxaanahu wa tacaala la dagaalamayo ku madax adeygay insaanku cadowgiisa koowaadi waa shaytaanka ina shayطaana lilinsaani caduwun mubiin rabbina subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga digay
in aanu shaydaanka caabudno u dhowaano qaraabin iyo waxyaalo aan u samayno alam achad ilaykum ya bani aadama an laa tacbudu shaytaan inahu lakum caduwun mubiin waan icbuduunii hada siraatu mustaqiim jidka toosani waxa wey rabbi jala jalaaluhu in la caabudo insaanka qaar ka mid a ayaa calaaqa waxay la yeesheen jinka waxayna ula yeesheen dariiq khaldan kaasoo ah dariiqa la yihahdo sixirka insaankii ilaahay karaameeyey walaqad karramnaa bani aadam ayaa hoos isdhigay jinnigii si uu ugu shaqeeyo ayuu jinnigii caabuday waxa uu doonaya jinniga ayuu sameeyey gaalow buu yidhi markaasuu gaaloobay yacni insaankii ayaa lagu yidhi gaalow kitaabka musxafka qaaduraadka iyo qurunka dhex dhig kitaabka musxafka jeexjeex oo muxuu ahaa saxarada acazakum allah isaga daahiri ii sujuud ii tuko wax ii gowrac intaas ayuu sameeyey taa markuu sameeyey ayuu bedelkii isaguna maadaama awalba cadow uu u ahaa kaas addoonka u noqday ayuu marka cadaawadiisa wuxuu usii gudbinayaa kaas doqomoobay oo doonaya qof walaalkiisa in ay dhibaato gaarto shaydaankii marka inuu dhibaateeyo sixirka wayaan meeshaan u socdo sixirku waa gaalnimo intiisa badan bal sixirka maanta jiraayay 99% waa gaalnimo culimada iyo aimada muslimiintu waa isku khilaafsan yihiin xukunka saaxirka laakiin waxay isku waafaqsan yihiin sixir kasta ama saaxir kasta oo sixirkiisa u sameeya wax gaalnimo inuu gaaloobay laba nooc bay u qeybiyeen culimadu waxay yidhaahdeen sixir diinta qofka ka saaraya waa midka gaalnimada ah oo waxa weeye jinnigii wax loo qowracayo oo jinnigii wax loo muxuu ahaa loogu dhawaanayo midna waa xaway caqaaqiidta iyo geedaha iyo abkhirada iyo daawooyinka la isku dardarayo oo qofku halkaas sixir ka sameynay laakiin waxay isku waafaqsan yihiin culimada dhamaanta qofka saaxirka ah in la dilo الsaaxir yuqtal kow baa lagaga siinaya waxaa loo dilayaa fasaadkiisa iyo ifsaadkiisa iyo kufrigiisa mararka qaarkoodna hadduusan gaalnimo ahayn qisaas baa loo dilaya haddii uu qof dilay saaxirku waa xubin faasid ah oo ku dhex nool mujtamaca ayna tahay in laga daahiriyo saaxirka waa in la dilaa shareecada islaamkaa qabta cumar bn khadaab radi allahu canhu ayaa cumaashiisii sham wuxuu amray saaxirka inay dilaan lmuminin xafsa bint cumar baa dishay saxaabigii muxuu ahaa jundub baa dilay saaxirka hala dila markii la leeyahay qofka dee arka ama maalin walba u jeeda dhibta saxaradu ay ku hayaan dadka muslimiinta ah xag hadday noqoto marad iyo jiro xag mustaqbalkoodii baabi-in walwal iyo ka-aabo imisaa guri iyo reer isku faaxsanaa oo saaxiibka la diray imisaa wiil yar iyo gabar yar oo reerkoodii usoo baxay oo diin leh oo wax bartay sariirta ay u fuuleen xanuun saaxiir daraadiis imisaa laba isjeclaa ay kala fogaatay wiil iyo hooyadiis wiil iyo aabihii gabar iyo hooyadii imis ay kala fogaatay saaxiir daraadiis reer maal qabeen ahaayo maal haystay oo nicmada ilaahi subxaana wa tacaala iska haystay imisay iflaas ugu dhacday oo ay muxuu ahaa maalkoodii u baaba-ay saaxiir daraadiis qof caafimaad qabay imisuu sariir u fuulay xanuun saaxiir daraadiis qof noolaa imisuu ugu dhintay saaxiir daraadiis saaxirku waa faasid 99% kuwa hadda joogaan maaha kuwa culimadu ka hadlayna waa gaalow maxaa yeele waxa ay ku dhaqmayaan iyo qaabkay sixirka u samaynayaan intuba gaalowe waxaan rabaa marka digniinta ammaanta wadaay waxay tahay sawirada lagu nashriyo social media intii hore muqadimayga ahayd halkaana u socdaa sawirada lagu nashriyay social media facebooka instagramka snapchatka meel walbaa sheeg waa meelaha ugu weyn oo laga ugaarsado qofka la doonaya in la dhibaateeyo mithaal baan idin siinaya sawirkaan idiin muuqdaaye sida ka muuqata waa family faraxsan nin xaaskiisii la faraxsan oo afka wax u gelinaya sawirkan ayaa saaxirkii helay muxuu ku qoray waa marka ugu horeyse teed ayuu kala dhex dhigay silsilado iyo muxuu ahaa bahalkii farabadnaha la oran jiray hanqaraaricii ayuu dhexdooda dhigay si u kala fogaadaan wuxuu ugu qoray ka-aaba
كآبة وتقان ومولول إيه مروجو إيه وحوي نحذين وحقوق الطلاق كلتك وولي وكوع العلي وحقوق المرض وجره وحقوق السرطان وكنسر وحقوق المرض كلا وحقوق الطلاق كلا وحقوق العقم هكذا فيه ما دليس نمو لما مرة وحقوق كرم وحقوق حوصن وحقوق إن صور كان وحلا قصق هذا يصور هذا صوص عذابة وحلا جه له إن قبري أي لجوه أصي مقاس إله سبحانه وتعالى بوري وهو إيضا سحر كالرادين يقبر لجوه أصي أي كواني صباحان وضع عربية ضوايا ولا راقية أي حديث يكون شريء صور كان كلا وأصل فهم الكيبي ويجيه المسح وبخ ولا وقف يكون اسكوف أحسن وحقوق كره نعيب وحلو علي مرض هي مرض وحلو علي عقم أم عقم وحاول من الاسنمو وحلو قرأ إجهاض المهم إنك صداتان سكارج وحلو قرأ الطلاق قبل ما ذي هذا نيك من يحس وحلو قرأ الطلاق وحلو قرأ إفلاس واقعي وحلو قرأ الطلاق اكتئاب كره عقم مرض بالغوا قرأ وصورته دي سحرك waxa loo adeegsaday waa sawiradoodii way teed baa la kala dhaxdhigay teed silsilad ah oo muxuu ahaa leh masaamid baalan tuugada guriyada looga xiro si aysan u soo dhicin ayaa muxuu ahaa loogu xiray waa sawirkoodii way sawirkooda waxa loo adeegsaday intaas wax ninka saaxiibka ay khabiifka ahaa ayaa loo geeyay familka waxa laga yaabaa intaas inay ku dhacday والشيطان كأم جيني وكسمي إن إسنعان إجهاض إنه علمه كسر دعي إن محوها دلوايين إن مال هدي هيستين مالك وكبابعي اكتئاب إنه كل عي كآب إنه كل عضي مروج يولول يمحوها أيجي لسكو فرح سنة وين الله سبحانه وتعالى ونشأ صاحبكم إنه فعل الكيس إنه يهلا بقى إسجعل إنه كرفوه يوكر إيريو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سيكون حقيقة تأثير بوليه تأثير أيوليه أو حوى إله سبحانه وتعالى بانوشة تأثير إنه ليه صور كان كلام وصور سورة كنتي نحن بدن وحال سوقاتي ولد اللي يرى صور كيس هل كان دوت كأهل مسكحة محوها قلال هل كاس أيا قفل لوغتان محال بقري وحال بقري عدم الزواج وإنه سنبورسن وحال بقري حزن والبهاء يمرقوا إنه سكبحن وحال بقري محوها أن الله المستعان الضعف الجنسي نين كان حاسكي سينو سوغو يلنبا إنه يقول له وادو وحال يقول له جي بومباليه لما دبلا روحي قال بالروحي هل كان أو قفاقة هل كان شيء هذا النبي نوشك صلى الله عليه وسلم الشيطان هو إنه بني آدم كواحد كعقده مركو يعني كوجنتو مركو هبدو أي حلوقة قري قال لما جيسوا حلوقة قري فقط إما درسني عقم ما لوقة قري لكن قال سوى كذي لو جدي وحقوق الصرف كجدي إلا جديو عدي مركا وجعلا طلستين كلا حزن باكو قرن عدم الزواج باكو قرن ضعف الجنسي باكو قرن كان كلامنا سيدا كان هوست هو محوها ستموت هي وحدة باكو قرن سادو جدانو إذي موقت إسلا صور كلا باكو قرن فقط حزن علامة يهودا كصورا علامة يهودا أيها كصورا إذا ما سحرة اليهود وهي وعاكو قرنا كان لما رأى أفرشان الله يعمل لح قاك عليه الأخر ضعف الجنسي هي عدم الزواج وعاكو قرن سرطان أيها قرن خاص قفول كينا وكتاجية صور كان كلا وحويجي هاي سحر النوع عليه السحر السفلي نوع أقول لي ته وقلنا خربان وقلنا يعني قاب دران ويان سحر سفلي والعياذ بالله
waxa uu yahay qofkii la sixrayay in la siiyo oo la cunsiiyo asaga jirkiisa wax ka soo baxay qaaduraadkiisa in la siiyo saxaradiisa kaadidiisa gabar hadday tahana in la siiyo yani dhiiggeedii caadada waxagee laga keenaya shayaadiinta keenaya jinniga keenaya sawirkan wuxuu egyahay sixrigaas baliya sixru sufliga acazakum allah waxaad ujeedaan gabdhaha baalka ay xirtaan xafaayadooyinka gabdhaha markay caadada qabaan baa ku qoran isla dhiiggii naftigiisii ayaa lagu qoray dhiiggii naftigiisii ayaa lagu qoray waxaa ku qoran wiilka magaciisa la sheegay muxuu ahaa wiilka salm muxuu ahaa wiilka magaciisa la sheegay magaciisa marka ma muuqdo oo hooyadiis magaceeda loogu yeeraya fulan walad naciima ah fulan oo walad naciima ah cadam azawaaj inuusan guursan min naciima binti xawa naciimo binti xawa inuusan guursan isaga hooyadiis waxaa la yihahdaa naciimo gabadha uu raba inuu guursadana waa naciimo marka naciimo inuusan isagoo ina naciimaha waa isku aaday yani adoo hooyada xaawo la yidhahdo gabar xaawo la yidhahdo dooni inaa guursid wayo marka ina xaawo inuusan guursan xaawo oo kale way marka waxaa leeyahay hebel oo walad naciimo ah inuusan guursan naciimo oo binti xaawo ah waxaa lagu dhejiyey wiilka magaciisii baa kor lagu qoray gabadha muxuu ahaa naciimana magaceed hoos baa lagu qoray baalka tiboniga maxafaayada oo dhiig iyo qurunka u yaallo ayaa bahalkaas hangoolka ah lagu kala kaxeeyey inta kalena waxaa lagu qoray meesha waxaa ku qoran suquud oo kale in muxuu ahaa amraad kur waxyaalihii muxuu ahaa kii hore lagu soo qoray oo kale ayaa ku qoran waa isla sawirkii weye waa suquud waa ikraah firaaq baa ku qoran marad baa ku qoran iyo wixii lamid ah gabadhii sawirkeedii halkaasuu ku yaallaa hoose naciima korkeeda waa kaa sawirkii ka muuqdo qufulkaasaa saaran qufulku bilmunaasaba waxyaalaha ugu daran oo ay adeegsadaan saxaarada weeye oo qofkii meeshii markaa wax lagaga xiray maalan qofkii waxaa lasoo qaadanayaa ay sawirkiis wejiga eyga markaasa qofka waxaa looga xirayaa sawirkaa lasoo qaadaya maalan qof aad jeceshahay sawirkiisa lasoo qaadan ey sawirkiisa lasoo qaadan qofkaas ishiisii iyo eyga muxuu ahaa wejigiisii baa laisku xiraya qofka markuu arko waxaa u muuqanaya wahalada ugu horeysa qaacda ugu horeysaba ey buu qofkii ula ekaanaya uu boodaya acuudu billahi min shaytan rajim udhaya qofkii caadi kusoo noqonaya wuu fiirinaya qofkii markuu saa ugajeeso saa u fiiriyo ey buu u noqonaya maxaa yeele waa ta'fiirkii iyo camalkii sixirku uu saaxibku uu soo sameeyey wayaan sawirkan kale wiil dhalinyara qaybta kale sawirka ma muuqato laakiin waxaa muuqata in laba laiskula xiray quful wuxuu u eg yahay inkastoo kor ay ku qoranta ikraa lakin cadfi inuu yahay bay isagana bay u eg tahayo wiilkan iyo sawirkan kale gabar hadday ku qoran tahay meeshaan in la isku xiray laba quful baa ku xiran wuxuu kaloo noqon karaa kala fogeyn iyo kala dheerayn uu noqon karaa midkan ugu dambeeya waa talaasintoodii iyo qurankoodii weeye waxa ay tahay ma fahmi karo idan saad ujeedaan waxyaalaha cadowga saaxiriinta isticmaalaan waxaa kamid a sawirkeena waad ogtihiin sidaan ugu faafino baraha bulshada khaasatan marka aynu ku jirna nimcooyin aan haysano aroosyada oo kale awlaadu markay dhashaan oo kale ilmaha yaryarka ah soo gelintooda oo kale waa wax laga weynaado runtii tarjumana loo arko sixirka meesha ugu weyn hadda uu ka yimaadayo sawirada waxaan ka digayaa marka sawirada ahalkeena iyo annaga oo isla faraxsan aan gelinayna social mediaha aan joojino maxaa yeelay cadow aadan ogeyn ayaa meel kuu fadhiya maxaa yeelay cadow aadan ogeyn ayaa ku sugaya dadkaas waxay galabsadeen malaha farxadda ay reereyntahay nimcadaas bay ku jireen laakiin cadow baa helay nafsadeena aynu muxuu ahaa ka badbaadino cadowga fursaddeena siino sidoo kale aynu waxaan ilaahay ka magan galno sixirku ta'fiir buu leeyahay sixirka waxaa ka mid a mid wax dila sixirka laba qof oo isjecel buu kala fogeeyaa sixirku faamil jiray oo guri dhisnaa ayuu kala diraa sixirku qof caafimaad qabay baa u xanuunsadaa sixirka waa loowa sixiruljunuun baa jira sixirulqatli watadmiir sixru tamriid
waxaas oo dhan baa jira aynu ilaahay ka magangalno qaabkoo magangalayna baynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala waxaan doonayaa insha allahu tacaala marka bal inaanu bilowno oo muxuu ahaa aynu iska waamino waxyaalahan saxaradu ay wataan iyo xamalaadka ay soo qaadeen ay kusoo qaadeen dadkeena muslimiinta khaasatan gabdhaha waad umalaysid inay aada iyo aada ugu nugul yihiin adiyada iyo dhibta ka imaanaysa saaxibiinta rabbi subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo kana magangelina biasmaai xusna wa sifaati culaa yani sharta shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga ah jinnigu dhibaatana ma yeelan haddaysan insigu la shaqaynayn kuwa insiga haddaysan la shaqaynayn labadooba shartooda ilahi subxana wa tacala baan ka magangalnay وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته